28 bisha labaad 2026 lixdii subaxnimo ee saacadda magaalada Dahraan waagu wuxuu ku bariyay qaab xasiloon 93 milyan ee reer Iiraan iyo hogaankoodu saaka wax dhiilaa ma dareemayaan laakiin waxa aysan ka warqabin abid weerarkii ugu ballaarnaa ee dalkan lagu soo qaado inuu ku soo maqan yahay saaka hogaamiyaha ugu sarreeya talada dalkani Ayatollah Ali Khamenei wuxuu sida caadiga ku sugan yahay dhismaha dhulka hoostiisa ee shubka ka samaysan isla subaxdani 6 ilaa 7 iyo barkii waxaa saldhigyada diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Yuhuudda iyo Mareykanka ka soo haaday diyaaradaha F-35, F-15 iyo diyaaradda awoodda badan ee B-2 oo qaada duqeymo culeyskoodu gaadhayo 18,000 oo kiilogaraam looguna talagalay in lagu dumiyo difaacyada dhulka hoostiisa ee shubka ka samaysan kolonyadan waxa uu helinaya diyaaradihii hawada sare shidaalka ku siin lahaa hogaamiyaha ugu sarreeya 93 milyan ee shacabka reer Iiraan wuxuu ku sugan yahay gabaadkiisa oo dhulka hoostiisa ah halkani ayuu degan yahay oo hoy u ah waa dhulka hoostiisa xagga sarena waa dhismihii xafiisyada iyo hoolkii shirarka inuu hawl u soo baxo mooye badi wuxuu ku jiraa dhulka hoostiisa dhismahani wuxuu hoos u qodan yahay 30 ilaa 35 mitir marka uu rabo inuu oogada sare ee dhulka soo gaadho oo ah halka dhismayaasha waaweyn ee qasrigu ka dhisan yihiin waxay ku qaadanaysaa uu dhexda ku soo jirayaa 5 daqiiqo sidaasi si la mid ah marka uu gabaadkiisa ku soo laabanayo wiishku wuxuu soo soconayaa 5 daqiiqo 5 daqiiqo in wiishku dhexda ku sii jiro waxay muujinaysaa fogaanta iyo adkaanta godkaasi leeyahay 35 mitir ee godkani qodan yahay waxaa lagu daboolay dhagax shub iyo bir si xirfadaysan loo isugu dhisay taasoo in la burburiyo godkani hogaamiyahana halkiisa lagu dilo ka dhigaysa mid aan macquul ahayn Ayatollah Ali Khamenei oo ah ninka ugu sarreeya kacaanka Iiraan ciidamada qalabka sida dowladda maxkamadaha iyo dhammaan shacabka dalkani waxay u hoggaansan yihiin amarkiisa isaga oo kaliya ayaana leh go'aanka kaba dambaysta ee dalkani inta badan wuxuu ku jiraa gudaha hoose ee gabaadkiisa oo dhulka hoostiisa ah marka uu xagga sare ee dhulka u soo baxayana waa sir aad loo qariyay oo cid aan ilaaladiisa iyo madaxda ku xeeran ahayni ma ogaan karaan laakiin sirdoonka Yuhuudda iyo Mareykanku waxay waqti dheer si qarsoodi ah ula socdaan dhaqdhaqaaqyada madaxda sare ee Iiraan waxay dhageysanayeen wadahadallada dhex maraya madaxdaasi kaamirooyinka ku yaala jidadka caasimadani Dahraan ayay sirdoonku gudaha u soo galeen waxayna si qoto dheer ula socdaan dhammaan waxyaabaha ka socda gudaha magaaladani gudaha Iiraan waxay ka samaysteen sirdoon iyaga u shaqeeya ilaa qaarkood ka howlgelayeen boosaska ugu sarreeya dowladdan Iiraan kuwaasoo xiriir dowlo leh hogaamiyahan dilkiisa la qorsheeyay sirdoonka Yuhuudda iyo Mareykanku 6dii bilood ee ugu dambeysay waxay si qoto dheer ula socdeen dhaqdhaqaaqyada Ayatollah Ali Khamenei daqiiqad ayaa loo diiwaangelinayay dhaqdhaqaaqyadiisa xidhiidhada uu sameeyey waxaa sidoo kale daqiiqad loo diiwaangeliyey dhaqdhaqaaqyada xubnaha faamiligiisa sirdoonka Mareykanku waxay ogaadeen in subaxnimada Sabtida ee 28 bisha labaad uu Ayatollah Ali Khamenei dhulka hoostiisa ka soo bixi doono uuna soo gaari doono dhismaha sare ee qasriga halkaasi oo uu saraakiil sare oo ciidankiisa ah shir muhiima kula qaadan doono arrinkan shirqoolka ah Ayatollah Ali Khamenei iyo kacaankiisu kama warqabaan ammaankiisuse waa mid aad looga taxadiray ciidamada ilaaladuna cir iyo dhul way dhiifoon yihiin laakiin waxa aysan ogeyn in nolosha hogaamiyahooda 2 saacadood oo kaliya ay ka harsan tahay 7 iyo barkii subaxnimo oo markaasi uu waagu si fiican u dilaacay waxaa soo kacay diyaaradihii Yuhuudda iyo Mareykanka oo ay wehelinayaan hawadana kula jiraan kuwii hawada sare shidaalka ku siin lahaa ee Mareykanku weerarkan waxaa laga hagayaa xarunta guud ee sirdoonka Mareykanka halkan waxaa lagu hayaa xog sirdoon oo 10 sano ee lasoo dhaafay laga ururiyay madaxda sare ee Iiraan si gooniya 6dii bilood ee ugu dambeysay
Awoodan caadi ahayn ayaa lagu bixiyey in lala socdo dhaqdhaqaaqa hogaamiyahan. Waxaa daqiiqad loo diiwaan geliyey nolol maalmeedkiisa iyo tan qoyskiisa. Dal sidani u ballaaran, 93 milyan shacabkiisu yahay, awood milatari dhul iyo cirba leh, gantaalada ugu casrisan iyo diyaarado dagaal ku qalabaysan, diyaaradaha keligood iswada ee daroonta iyagu samaysta, leh gantaalo balaastiga oo qaaradaha isaga tallaaba, qarkana u saaran inay madaxyo nukliyeer ah samaystaan, aqoon xeel dheer oo dhinaca difaaca iyo tiknoolajiga ah leh. Hal nin uu leeyahay awoodda ugu sarreysa. In hal subax la weeraraa arrin sahlan ma aha. Si meesha looga saaro dhammaan hogaamiyahan iyo madaxda ku xeeran, waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo qaab xisaabeed aan wax yar oo qalada lahayn. Waa qorshe waqti dheer laga soo shaqeeyey. 7 bilood ka hor, oo ku beegnayd bishii 6aad ee 2025, dagaalkii 12 maalmood ee dhex maray Iiraan iyo Yuhuuddu wuxuu wax badan ka bedelay qaab fikirkii hogaamiyaha sare ee Iiraan. Diyaaradaha dagaalka ee Yuhuuddu waxay duqeymo argagax leh waqtigaasi qaab lama filaan ah ugu weerareen xarumihii militariga iyo nukliyeerka ee gudaha Iiraan. Waxay duqeymahaas ku dileen qaar ka mid ah saraakiishii ugu sarreeyay ee kacaanka Iiraan. Waxay sidoo kale laayeen saynisyahanadii ugu aqoonta badnaa ee nukliyeerka u qaabilsanaa dowladdan Iiraan. Weeraradan ayaa wax kasta sidii hore ka bedelay. Ayatollah Cali Khamenei wuxuu ka dhuuntay dhammaan indhaha caalamka. Dhaqdhaqaaqiisa waa la xadiday, waxaana la laba jibaaray digtoonidii. Si howlgalkani uu noqdo mid guuleysta, waa in wax kasta sidii loo qorsheeyay ay u dhacaan. Sirdoonka Mareykanku wuxuu xogta siinayaa duuliyayaasha diyaaradaha Yuhuudda. Diyaaradaha F-15 ayaa iyagoo kolonyo ah hal mar u soo haaday dhinaca magaalada Dahraan. Diyaaradahani waxay xambaarsan yihiin gantaalo ku shaqeynaya GPS. Waa gantaalo marka la sii daayo mid kasta uu bartilmaameedkiisa si saxan ugu dhacayo. Ciidamada weerarka fulinaya ee Yuhuudda waxaa soo gaadhay war uga yimid dhinaca sirdoonka Mareykanka. Waxaa loo sheegay in maalinta Sabtida 28 bisha 2aad 2026 uu hogaamiyey Ayatollah Khamenei iyo saraakiil sare ay dhismaha sare ee qasriga shir ku leeyihiin. Dhismahani wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada caasimadda ah ee Dahraan. Waxaa ciidamada weerarka fulinaya loo sheegay waqtiga saxda ah ee hogaamiyuhu shirka leeyahay. Maadaama la ogyahay Ayatollah Khamenei inuu saaka godka ka soo baxayo, shirna ku leeyahay dhismaha sare ee qasriga, qorshuhu waa in laga faa'iideysto inta uu shirku socdo, hogaamiyahuna uu ku sugan yahay dhulka korkiisa. Sirdoonka Mareykanku waxay isticmaalayaan basaasiin ka mid ah dowladda Khamenei oo iyaga u adeegaya. Shirkan iyo wax walba oo ku saabsanna daqiiqad ula socodsiinaya. Ilaalada qasriga madaxtooyadu waa kuwo aad u dhiifoon. Weerar kaga yimaada dhinaca Yuhuudda waxay filanayaan oo keliya xilliyada habeenka ah, laakiin arrinkaasi mid ka duwan ayaa loo qorsheeyey. Markan maalin cadday ayaa la soo galay. Waqtigan oo filashada weerarku yar tahay, waxay istuseen Yuhuudda iyo Mareykanku inay tahay qorshaha ugu wanaagsan ee hogaamiyahan iyo dowladdiisa lagu ciribtiri karo. Haddii ilaalada hogaamiyuhu ay in yaroo shaki ah dareemaan, waxay isla sekinkiiba amar ku siinayaan Ayatollah Khamenei inuu hoos ugu dhaadhaco gabaadka dhulka hoostiisa ah. Inuu godka hoose gaadhana waxay qaadanaysaa keliya 5 daqiiqo. Halkaasi haddii uu gaadhana, weerarkan oo dhammi waa fashil. Diyaaradihii weerarka fulinayay waxay soo gaadheen markani hawada magaalada Dahraan. Waxay hayaan goobta saxda ah, waqtiga, iyo cabir xisaabeedka goobta uu Ayatollah Khamenei ku sugan yahay. Diyaaradaha F-15 oo raxan ah ayaa weerarkan fulintiisa diyaar u ah. Waxay 1 daqiiqo gudaheed rabaan inay 30 gantaal meel dhow kaga tuuraan qasriga Ayatollah ku jiro. Qorshuhu waa in angala kala duwan si saxan gantaalada ay uga haleelaan halka uu fadhiyo hogaamiyahani. Si qorshahani fashilka looga ilaaliyo, sirdoonka Mareykanku waxay khalkhaliyeen dhammaan ateenooyinkii isgaarsiinta ee ku yaalay agagaarka qasrigani. Waxaa lagu furay shucaac. Gebi ahaan wax isgaarsiinaya qasrigan iyo hareerihiisa kama shaqaynayaan. Waxaa laga hortegayaa in mid ka mid ah ilaalada uu shaki yar dareemo, sidaasina hogaamiyaha dhulka hoostiisa loola cararo. Haddii taasi dhacdana, qorshahani waqtigii ugu xumaa ayuu fashil noqonayaa.
Gantaalada diyaaradaha F-15 laga tuuri doono waxaa ku jira GPS. Waxaa si toos ah loogu hagayaa halka uu fadhiyo Ayatollah. Waxaa la soo gaadhay waqtigii qorshahan la fulin lahaa. Ayatollah Khamenei iyo saraakiishiisa sarsare goobta ayay ku jiraan. Isgaadhsiintu goobtan iyo hareeraheeda way ka maqan tahay. Diyaaraduhuna waxay soo gaadheen cabirkii ugu wanaagsanaa ee ay gantaalada ka tuuri lahaayeen. Wax waliba 60 sekin gudahood sidii loo qorsheeyay waa inay u dhacaan. Kolonyada diyaaradaha F-15 ayaa hal mar 30 gantaal oo cabir saxan haysta angalo kala duwan kala eegtay dhismihii uu ku sugnaa Ayatollah Cali Khamenei. Qaraxyada gantaalaha, qiiq iyo qasrigii hogaamiyaha oo dhulka yaala ayaa isxigay 1 daqiiqo gudaheed. Goobtii qasriga ku yaalay waxay isu beddeshay dambas. Isla waqtigan waxaa hawada sare ee satellite-ka laga qaaday sawirro muujinaya burburka meesha gaadhay. Ayatollah Cali Khamenei wuxuu ku dhintay weerarkan, meydkiisuna wuxuu ku dhex jiraa burburka iyo qiiqa qasrigiisa ka baxaya. Weerarkani waxaa lagu dilay 5 ka mid ah qoyska Ayatollah. Waxaa dhaawac daran soo gaadhay xaaskiisa, waxayna dhimatay 3 maalmood kadib. Waxaa isla weerarkan lagu dilay gabadhii uu dhalay Ayatollah iyo ninkii qabay gabadhaasi iyo ilmahoodii oo 14 bilood jira. Sidoo kale, Mujtaba Khamenei oo ah wiilka uu dhalay Ayatollah Cali Khamenei oo isla goobta ku sugnaa, wax yar ka hor inta aan weerarku dhicin ayuu u soo baxay dibadda si uu hawo fresh ah u soo qaato. Xaaskiisii Sahra ayaa ka mid ah dadka gudaha ku jira. Inta aanu soo noqon ayuu weerarkii dhacay, sidaasina waxaa ku geeriyootay xaaskiisii. Isaga waxaa soo gaadhay dhaawac aan darnayn, wuu ka caafimaaday, wuxuuna noqday ninka beddelay booskii aabihii. Weerarkii waa lagu guulaystay. Hogaamiyihii Ayatollah Cali Khamenei waa la dilay. Saraakiishii sare ee la fadhidayna waa ay raaceen. Laakiin nidaamkii la rabay in meesha laga saaro wuxuu helay dhiig cusub oo uu ku sii socon karo. Haddii aad ilaa halkan ila soo gaadhay, ha ilaawin muuqaalka inaad like saarto, sidoo kale channelkeena soo raac si aad u hesho barnaamijyada dambe ee channelkeena. Nabadgelyo.